بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Cabqari Academy YouTube channel waa channelkii Cabqari Academy insha Allah. Aniguna waa Ustaad Cabdinuur Maxamed Samatar. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay furo subscribe dheh furana gambaleelka si xilli kasta iyo goor walba xashirka aynu soo dhigno uu ku soo gaaray insha Allah. دروسي كلا دوونات waxay ka socotaa koorsooyin kala duwan ka socda Cabqari Online Academy idin danaynaysa insha Allah addresseskeena waxaad ka helaysaan isla YouTube-ka waadna la soo xiriiri kartaan cashirka maanta aan qaadanayna waa possessive adjectives wax loo yaqaano la socosho wanaagsan possessive adjectives marka laga hadlayo waa sifo lahaansho muujinaysa wuxuu ka mid yahay 8 qaybood oo loo yaqaano 8-bar speech adjective-ka ayaa ka mid ah marka waxaan leenahay adjectives-ku wuxuu ka mid yahay 8-bar speech chapter si kala leeyahay ama qaybo kala duwan ayuu si kala leeyahay adjective of color quality size origin adjective of possessive adjective interrogative adjective indefinite adjectives kala duwan yihiin ka waxa loo yaqaanaa possessive adjective magaciisa uu wataa possessive lahaansho muujinaysa marka markii la yiraahdo possessive adjective waxay noqonaysaa sifo lahaansho muujinaysa maxay noqonaysaa waa sifo lahaansho muujinaysa haddaba sifada lahaanshaha muujinaysa intaanan u gelin waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo inaan aragno personal pronoun-ka magacayaal shakhsiyeedka qaybtan magacayaal shakhsiyeedka cashir ahaan hadda uma aanan qaadan laakiin waa u qaadan doonaa cashirka laakiin waxaan fahmaynaa sida ay usula shaqeynayaan possessive adjective-ka iyo magacayaal shakhsiyadeedka marka haddaba magacayaal shakhsiyadeedka oo kuwan bb-da waxaa laga soo gaabshay personal pronoun bb-da waxaa laga soo gaabshay personal pronoun ayaan kasoo gaabinay bb-da marka aan fahanno personal pronoun ayaa laga soo gaabshay bb-ga I waa personal pronoun waa aniga we-na waa inaga you-na waa adiga you-na waa idinka labada you marna waa singular marna waa plural they-na waa iyaga she-na waa iyada he-na waa isaga idna waa xayawaanaadka iyo shayaasha loo adeegsanaya haddaba personal pronoun-ka marka loo yimaado possessive adjective-ka kan waxaa laga soo gaabshay b-eedan waxaan kasoo gaabinay possessive adjective-kan meesha noo yaalan kasoo gaabinay haddaba marka laga hadlayo I aniga waaye possessive-keeda wuxuu noqonayaa my waxayga first person markuu hadlayo qofka hadlaya I so always personal pronoun waxay noqonaysaa possessive-kiisu my ay noqonaysaa we I jamceeda waaye waa inaga our ay noqonaysaa our waxay jamc u tahay my you waa adiga waa possessive waa you waa personal pronoun your tuna maxaa waaye your ama your labada la dhihi karaa you-dan waa jamac your tana maxaa waaye ama yodan waa wixiina waxa adiga waxaaga iyo wixiina noqonaysaa macnaha waa arki doonaa theyna waa maxay waa iyaga their waxooda she waa iyada her waxeeda he waa isaga him okay meeshan waxaa laga rabaa hisa laga rabaa him ayaa cashiraan ugu qoran marka error ka jira waxaan ka dhisan ku daraynaa hisaan leenahay marka waa maxay he maxaa leenahay his him to object waaye haddana shaqaas ma joogno marka it ay noqonaysaa I aniga we inaga you adiga you idinka they iyada she they iyaga she iyada he isaga maxaa id xayawaanad shayaasha qoladan haddaba marka loo yaqaano maxaa la dhahay possessive adjective-ka waa sifo lahaansho muujinaysa oo kuwan intan ay waxaa loo yaqaanaa possessive adjectives-ka my waa waxayga my waxay aniga waan leeyahay first person qofka hadlaya wuxuu leeyahay you our-na waa wixii naga dhexeeya waa inaga your-na waa waxaaga your-na waa wixiina dadka allaadayso ama kali ama jamac their-na waa maxay waa waxooda her-na waa maxay ama ha waa iyada waxeeda his-na waa isaga waxiisa itis-na meeshaan laftigeeda waa itisa laga rabaa waa inaan esta ku darnaa laftigeeda itisa laga rabaa waxaa laga rabaa itisa laga rabaa possessive adjective-keeda wuxuu noqonaa itis haddaba marka possessive adjective-ka iyagoo shaqo ku jira fiiriya markastana possessive adjective see loo qeexaya fiiri possessive adjectives are used waxaa loo isticmaalaa to show possession maxaa la inay muujiyaan lahaansho muujiyaan possessive adjectives-ka are used waxaa loo isticmaalaa to show possession maxaa la inay lahaansho muujiyaan oo kuwan definition-kiisa waa kaasa
positive adjectives are used waxaa loo isticmaalaa to show position inay muujiyaan lahaansho. I aniga my waxayga, we inaga, our you adiga, your waxayna, you idinka, your waxayna, they iyaga, their waxooda, she iyada, her waxayda, he isaga, his waxiisa, it is idna it is ay noqonaysaa. I have a car aniga gaari ayaan leeyahay. Examples kan isticmaalina fiir. I have a car anigu gaari ayaan leeyahay. I have a car gaari ayaan leeyahay. My car gaarigaygu is new oo cusub yahay. I have laftigeeda waa lahaansho laakiin waa fal lahaansho muujinaya. My iyo your iyo our maxaa waa sifa lahaansho muujinaysa. labadoodu maxay muujinayaan lahaansho. Have iyo has lahaanshay muujiyaan. qoladan my our your iyo his iyo her maxay muujiyaan lahaansho laakiin maxay kaliin fal lahaansho muujinaya iyo sifa lahaansho muujinaysa. We have children caruuran leenahay. Our children caruurteenu are at home gurigay joogaan. Are at home gurigay joogaan. You have a cell phone hadii waxaa leedahay telephone. Cell phone waa mobile oo kale. American ka isticmaala. British kana mobile u dhaha. American kana cell phone u dhaha. Cell phone u dhaha. Your cell phone is expensive. Your cell phone ama your cell phone is expensive. Mobile ka waa qaali. You have parents waalidiin ayaa leedahay. Your parents are kind. waalidka waa naxariis ay leeyihiin. way naxariistaan macna kind naxariis waa noocna way noqonaysaa laakiin hadda kind naxariis ugu jirta. They have house iyo guryo leeyihiin. Their houses guryahoodu are for sale. guryahoodu waa iib. She has a baby iyadu cunug ayay haysataa ama leedahay. Her baby is handsome. cunugeeda wuu qurxoon yahay. quruxda weliba ragga loo isticmaalaa. Beautiful dumarka loo isticmaala iyo bayada. He has a wife isaga xaas uu leeyahay. His wife is generous. xaaskiisu waa deeqsi. deeqsi qofka gacanta furan oo wax bixiya. It has many legs. looga badan ay leedahay. Its legs lugaheedu are very short aad u gaagaabayn. haddaba markaan fiirino my, our, your, their, her, his, it is dhammaan waa positive adjectives. haddaba keligood ma shaqaynayaan. keligoodna ma istaagayaan. markasta maxaa laga rabaa waa inuu magac raacaa. gaarigayga my car, gurigayga my house, mobilekayga my mobile, walaalkay my brother, hooyaday my mother, abahay my father, my sister, my wife. qof kasta first person ka. second person na waxa waa your. our na waa wixii inagu aan leenahay waa wax naga dhaxeeya. your wixii dadkaas hor ka la hadlaysa dad wax ka dhaxeeya. your father abihin, walaalihiin, gurigiini, hay gaarigiini, hay daarna waa waxooda. her iyo hisna lab iyo dhadiga loo isticmaalay. haddaba positive adjective ka marka waa sifa lahaansho muujinayso. markastoo la isticmaalayo waxaa laga rabaa in lala isticmaalo magac ay ku dhagaan. iyagu kaligood ma istaagi karaan. my inta iraa ma ka hari karo. my waa inaad keentaa wixii marka. my computer, my laptop, your computer, your printer, printer kaaga. haddii computer laga hadlayo waxaa leeyahay I have a computer. It is printer. maxay noqonay ilaan computer printer uu leeyahay sooma asaga wax leh. It is printerkiisa day. mobile haysa it is memorygiisa. It is waxaa loo isticmaalo wixii shayaala ama xayawaanada ayaa loo isticmaalaya. haddaba marka la isticmaalayo qoladan waxaan idhi waa personal pronouns waayo qoladan. qoladan halka noo taala maxaan ku sheegnay waa personal pronouns. laakiin qoladan maxay yihiin marka waa positive adjectives. aniga waxayga, inaga waxeena, adiga waxaaga, iyaga idinka waxiina, iyaga waxooda, iyada waxeeda, isaga waxiisa iyo xayawaanada shaayaasha. haddaba exampleskiina waan aragnay. I have a car, my car is new, we have children, our children are at home, you have a cell phone, your cell phone is expensive, you have okay. haddaba marka si aan u fahanno balaan wax yar qaabka loo isticmaalayo qaybteena kale aan fiirino marka. haddaba markaan leenahay markasta fiiri meeshan ruleka la isticmaalaya positive adjectives ama sifada lahaanshaha markasta waa plus noun. meesha maxaan dhahnay my, our, your iyo her iyo it is iyo his ayaan soo qaadanay. yoorti laba jeer aan soo celishan hal mar soo qaatay hadeer. laakiin laba jeer marna waa waxaaga marna waa wixiina. waa dad badan iyo dad hal qof oo kaliya la hadlayso. haddaba plus noun alla maxaa laga jeedaa marka my plus house maxay noqotay my house. our ama our plus sons our sons caruurteena wiilasheena. their plus car their car her ama her plus sister her sister ama her sister. his plus daughter his daughter. maxaa meesha ka fahmaynaa markasta waxa fahmanku wuxuu yahay in plus noun laga rabo adjective marka loo baahan yahay. positive adjective ko dhan wuxuu sifeeyaaba
magac ama magacyaal wax ka sheego shaqaysa sidaas inuu magac wax ka sheego ama inuu magacyaal wax ka sheego kan marka waa inuu markasta magac ku dhagaa waa inuu magac raacaa ma jirto mar my our your his ay kaligood istaagi karaan mar waxaa jirta marka possessive pronoun la yiraahdo oo meesha myda mine noqonayso meesha yourta yours noqonayso meesha ourta ours noqonayso oo s lagu darayo theirs noqonayso hers noqonayso hista isma bedelaysa laakiin his ay noqonaysa waa jiitamaysa waa la jiidaya waa baran doonaa possessive pronoun la markaas laakiin kuwaas kaligood istaagaan magac ma raacaan kuwaas magacee laguma daro tusaale marka example yar fiiri mine is new mine is new markaan waa la dhihi karaa kaygu waa cusub yahay waa possessive pronounka meesha myda ah mine loo isticmaala possessive pronounka cashar kale isticmaali doona waay waxayna kala yihiin possessive adjective iyo possessive pronoun qolana waa magacyaal lahaansha muujinaya qolana waa maxay waa sifo lahaansha muujinaysa marka haddaba waqti badan yaana ku qaadanin possessive pronounka cashar gooniya oo aan sharaxi doono oo exampleskooda isu shaqeynaan ka hadli doono noqon doona insha allah haddii la yiraahdo cashirkeena maanta aan qaadanay oo ku saabsanaa possessive adjective-ka conceptan ka qaadanayna wuxuu yahay waa sifo lahaansha muujinaysa sifada lahaanshaha muujinaysa waxaa la possessive adjectives are used loo isticmaalo to show position maxaa in lahaansha lagu muujiyo haddaba cashirkeeni maanta aan qaadanay insha allah intaas ayuu noogu egyahay si bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan uga faa'iideysto fadlan subscribe dheh gambaleelkana fur insha allah si cashar walba iyo duruus walba oo aynu soo dhigno ay idinku soo dhacdo isla markaan soo dhigno midda kale sidoo kale koorsooyinka caadiga ahaa oo caadiga koorsooyinka loo qaadanaya loo baranayay oo kalena waxay ka socdaan Abqari Online Academy fadlan ka faa'iideyso bulshada Soomaaliyeedna uga faa'iiday cidii danaynaysa haddii ilaahay yiraahdo waa bilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ustaad Cabdinuur Maxamed Samatar oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo